بسم الله الرحمن الرحيم. maantana waxaan ku jirnaa gunaanadkii safarkeenii gaabnaa oo aan muddada labada maalmood ku joognay jasiiradda Isle of Man. runtii inta aan joognay waxaan ka baranay jasiiraddan waxay leeyihiin isxukun gooni ah oo waxay leeyihiin baarlamaan ayaga u gaar ah, waxay leeyihiin tax canshuur oo systemkiisa ayaga u gaar u ah. waxa kaliya ay boqortooyada ingiriiska ka maamushaa kaliya dhanka difaaca iyo waxay ka maamushaa dhanka arrimaha oo dibadda. si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa yiraahdo Isle of Man waxaa loo tagaa canshuurta raqiiska awgeed. waa run, canshuurta waxa waaye jasiiraddan faa'iidada corporation tax ma jiro oo waa free. capital gains tax kana oo sheerarka laga helo waa free. dadka cryptocurrency-ga oo haystana canshuurtoodii waa free. marka taas ka sokow markii laga fiiriyo sida anagoo kale bulshadeena soomaalida canshuuraha mathalan dadka dakhligooda uu yahay 40,000 iyo wixii ka hooseeyo, jasiiraddan dan uguma jirto maxaa yeelay canshuurta London ayaa ka raqiisan. maxaa yeelay national insurance numberkoodii ayaa aad qaali u ah iyo income tax-ka 20% waa hadduu lacag badan kusoo galo, hadduu lacag yar kusoo galo. marka taas darteeda dadka lacagta yar soo galo yani waxaa moodaa inay macnaa ay axsaan weyn ay u falin dhanka canshuuraha, laakiin dadka taajiriinta ama dadka lacagta leh ayuu dan ugu jiraa, dadka sheerarka iska leh, dadka oo macnaa oo waxyaabahaas iska leh. marka canshuurta waa taa, laakiin waa deegaan aad nabad u ah, runtii oo bad qurux badan leh. Irish Sea ayay leedahay, badda quruxda badan, jawigeedu waa fiican yahay. sidoo kale dhismooyinka quruxda badan haddaa aragto Victorian oo buildingka iyo modern building ayay israaciyeen. marka waa magaalo oo aan yani sida London camal aan u mashquulsaneen oo maskaxda u roon. runtii weli qof Soomaali ah kuma arkin. salaada jumcaha aadayna hadhoodii waxaa dhici karta inaan qof Soomaali ah ku aragno. laakiin magaaladan badanaa waxaa yimaado dadka remote-ka ka shaqeeyo oo bangiyada ka shaqeeyo oo aan u baahnayn inay xafiiska tagaan, iyo dad badan oo lacag leh oo retirement sameeyey ayaa meesha iska soo dega maadaama meel hawadeedu fiican tahay, iyo waa meesha oo Britain lagu leeyahay ugu nabadaysan, ugu safe garaysan. maxaa yeelay haddii aa wax samayso darbiyada dhanaa lagu soo dhejinaa oo macnaa oo ayay leeyihiin waa lagu fadeexeynaa. marka dhanka ammaanka aad ayuu u fiican. marka meeshaan haddii qof uu soo degayo ma aha keliya in uu usoo dego canshuurta, waa inuu usoo degaa waxyaabo kale. sidoo kale waxay qabaan lacag ayaga u gooni ah, lacagtaasna waxa waaye wuxuu la qiimo yahay poundka ama sterlingka oo Britain. maxaa la dhahaa, laakiin uma qaadan kartid dalka UK lacagta oo ma isticmaali kartid, inta gudihiisa keliya ayaa ka isticmaali kartaa. sidoo kale bangigaaga xataa hadduu Barclays yahay intana Barclays ku yaalo, lacagta inaad ku shubato camal way ku diidaan, fakaanama laba wadan adigoo kala ah ayay ku sifeynayaan. laakiin si kastaba ha ahaatee waa jasiirad ku dadaalay inay keediyaan dhaqankoodii iyo hiddahoodii. xitaa waxaa dhacday 2009 ayaa UNESCO waxay ku dhawaaqday in luqadoodii uu dabar go'ay oo ninkii ugu dambeeyey oo ku hadlayay uu geeriyooday. marka dhalinyaradii oo macnaa deegaankan ayaa xanaaqay, ayaa waxay sameeyeen inay macnaa dad badan macnaa inay soo nooleeyaan luqadii. hadda dad badanaa ku hadlo, iskuullada laga dhigaa. marka anagana sidoo kale waxaan qabnaa akademi goboleedka waa muhiim inaan luqadeenii kobcino oo aan korino oo aan dhaqaaleyno, waxyaabahaas ayaan ka baranaynaa. sidoo kale waxaa cajiib ah, waxay leeyihiin calan oo 3 lugood ah. calankaasna wuxuu leeyahay calanka macnaa 3daas lugood, macnaa si kasto aa ii tuurto aniga labadeeda lugan ku istaagaya. macnaa waa cajiib, yani waa adkaysi meeshii ugu dambeysay. sidoo kale dadka Soomaalida wax ka qora, nin Soomaali oo Ingiriis oo Soomaalida wax ka qora wuxuu yiri
soomaaliga waxay leeyihiin dabeecadaha anglo irishka waa dadka meelahan degan adkaysigoodii ayaa aad oo waxa u ah adkaysi sare maadaama waa aragtay dhibaatooyinka 40kan sano oo soomaalida ay soo martay iyo halka hadda ay ka joogto yacni haddii ay bulshooyin kale ahaa lahayn waxaa dhici kartay in bulshooyinkaas ay dabargo'i lahaayeen marka laakiin ilaahay waxaan u rajaynaynaa dalkeena hooyo nabad insha allahu tacaala waa isle of man jasiiradda isle of man iyo barnaamijkii dhul marow iyo meelo kalena insha allah waa booqan doonaa oo waxyaabahii aan ka baran karno ayaan idin soo gudbinaynaa marka meeshan waxaan ka baran karnaa canshuurta yar faa'iidooyinka ay leedahay oo dhaqaalahay kordhisaa runtii dhaqaalahooda aadu u kordhay sidoo kale hidaha iyo dhaqankaagana inaad keediso muhiim waaye hadda jasiiraddan waxyaabaha oo tuuristiga loo keeno waxa ugu muhiimsan waa hidahoodii dhaqankoodii ayay macnaa keediyeen sidoo kalena waxaa jiro waxyaabo aan ku aragnay sida bisadooda ama maxaa la dhahaa mukulaashooda yacni dib ma lahan macnaa waa mid ayaga u khaas ah keliya jasiiraddan sidoo kale idahoodii wuxuu leeyahay 6 geesood ama 4 geesood waa mid ayaga u khaas ah haddana oo kale marka marka ilaahay wax abuurkiisa ayuu ku tusayaa hadba siduu u kala duwaayo ilaahay macnaa hal abuurkiisa marka calaa ayi xaal runtii aniga ahaan tan iyo intaan safarka bilaabay wax badan ayaan ka kororsaday markii aan akhriyay aayaddii ahayd afalam yasiiruu fi lardi fatakunu lahum quluubun yacqiluuna biha ow aadaanun yasmacuuna biha macnaa miyaynan safrayn si oo quluubtoodii oo macni u furmo oo caqligooda u furmo oo dhagahoodiina wax u maqlo mar kullama aad safarto waxay yacni qalbigaagay furaysaa waxyaabo badanaa arkaysaa meelaha adiga aad ka liidato ayaa arkaysaa iyo meelaha adiga aad ka horumarsan tahay markaasaa fikrado iyo waxaas ayaa soo qaadanaysaa marka waxaan u shallaayay maxaa mar hore safarka u badin weysay laakiin waagii hore caruur korisaa la ahaa waxaasoo dhan yani qalbiga kaama soo galaa marka maadaama hadda awowa la naqday marka waxaa waaye fursad caruurtiya waxay ku leeyihiin awowe safar wixii aa rabtay inaad samaysid oo mustaqbalkii aa rabtay haminaysay hadda sameey weli dhalinyaraa tahay dhiinaa kugu jiro iska yani macnaa safar marka waxaan leeyahay caruurteeni caruurta soomaaliyeed ilaahay ha dhooro waa dad fiican marka waa baazi busuri iyo barnaamijkii dhulmarow iyo waa inuu mar kale iyo deegaan kale waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa walaalkayga ibraahim abba oo isku soo dubaraday barnaamijkan waqti badanna geliyey oo macnaa tafatirkiisa iyo habeynta oo muuqaalka marka waxaan u rajeynaa isagana khayr sidoo kale waxaan ilaahay ka baryaynaa in dalkeena hooyo uu nabad usoo naadiyo uu nabad noo keeno barwaaqo hadduu eebe idmo insha allahu tacaala waxaan waa laga baxayaa dhibka dheef ayaa ka dambeeya insha allahu tacaala waxaan noqon doonaa hadduu ilaah yiraahdo dalka qaaradda africa ugu shidan hadduu eebe idmo waxaa kaliya loo baahan yahay inaan qalbiga isku furno isu tanaasulno insha allah is aaminno boogtii colaadeed oo horena aan iska daweyno hadduu ilaah yiraahdo